agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdifataax Siciid Axmed oo weeliyay taliyaha guud ee ciidamada laanta socdaalka Soomaaliland Dayib Cismaan Caalin oo shir jiraad ku qabtay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa waxay si adag uga hadleen baasaboorka dalkaasi Soomaaliya ee lagu sameeyay gudaha Soomaaliland. Cabdifataax Siciid Axmed agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa uu sheegay in cawaaqib xumo la kulmi doonaan cid kasta oo isticmaasha baasaboorka Soomaaliya ee lagu farsameeyo gudaha Soomaaliland. agaasimaha guud oo arrimahaasi ka hadlay waxa uu yiri waxaan ka hadlaynaa arrin hore aan uga hadalnay oo runtii ku saabsan baasaboorada forgery-ga ah ee Soomaaliya ee lagu sameeyo Soomaaliland. taasaan ka hadlaynaa maanta runtii hore aan uga hadalnay laakiin maanta waxaan uga hadlaynaa baasabooradaas inaan lagu bixi karayn laguna soo gali karin dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland cidii ku soo gashay ama cidii sameeysan dambiilo qaran ay tahay. runtii dadka waan u sheegaynaa dad badan baa la khaldaya waxaan leeyahay lacagtiina meel khasaaraha ku shubina kaga ma bixi kartaan xuduudaha iyo madaarada Soomaaliland ka fiirsada baasaboorka Soomaaliland. Dayib Cismaan Caalin taliyaha guud ee ciidamada laanta socdaalka Soomaaliland ayaa waxa uu faahfaahiyay talaabooyinka laga qaadi doono cidii lagu qabto baasaboorada lagu farsameeyo gudaha Soomaaliland ee dawladdaasi Soomaaliya leedahay. waxaanu yiri markaas macnuhu wuxuu daaran yahay in dadweynaha la fahamsiiyo mar kale baasaboorkaas Soomaaliya sida forgery-ga qarsoodiga loogu sameeyay Soomaaliland oo dadweynaha qaarkood qaateen oo ciidamada ay ka hawl galeen in la qabto meelaha lagu sameeyo lana qabtay maxkamadana loo gudbiyay cidii qaadatay inaanay kaga dhoofi karin oo kaga bixi karin kuna soo gali karin garoomada iyo xuduudaha meelaha laga soo galo Soomaaliland. baasaboorka Soomaaliya ee Soomaaliya ka soo baxay wuxuu la mid yahay baasaboorada kale ee ajnabiga ee wadamada kale ee Yurub iyo Afrika lagu sameeyay. dadkeena way haystaan waana ku macaamilaan waana ogolahay immigration ahaan iyo wasaaradda arrimaha gudaha ahaan oo xil saaran hawshaas. Luqmaan Maxamed Faarax telefishinka caalamiga bulsho gudaha magaalada Hargeysa.